laba qof waxaad arkaysaa labaduba deyn bay doonayaan waxaanay doonayaan lacag 5,000 lacag 10,000 oo doolar 10,000 oo doolar waxa weeyaan mid wuxuu ku iibsanayaa gaari buu ku iibsanayaa deetana gaarigaas waa gaari xarro mid kalena wuxuu ku iibsanayaa jaguu ku iibsanayaa deetana markuu jagadii ku iibsado jagadii waa asset weeyaan oo sanadba sanadka ka dambaysa wuu sii kordhayaa waxa weeyaan qiimaha ay taagan tahay lacag marka 10,000 haddii ku iibsado 5 sano kadib waxa laga yaabaa 20,000 amba 25,000 amba 30,000 oo doolar inay u istaagto halka qofka kale gaariga iibsanaya isagoo xaragadu uga baahan yahay gaariga shidaal uga baahan yahay repairing uga baahan yahay iyo in maintenance-kiisa yacni laga shaqeeyo hagaajintiisa iyo qurxintiisa iyo waxa weeyaan naashnaashkiisa sidoo kalena ay caqabad kale ku sii qaadato oo ay ku noqoto haddiiba uu shil galo qofkaasi in iyada laftigeedu uu sii gelin karayo halis kale oo dhaqaale uu sii gelin karayo oo qofka looga doonayo waxa weeye shilkii uu galay in de wax inuu dabare lacagteedii marka labada qof oo kale labadiiba deyn bay qaateen 10,000 doolar bay qaateen midna wuxuu ku iibsaday asset midna wuxuu ku iibsaday waxa la yidhaha liability-ga liability waa shay kasta oo jeebkaaga lacagta ka saara like sida inaad gaari xarraga iibsato wuxuu kaaga baahan yahay biil gaar iyo dhaqaale gaar inaad jaga iibsataa iyadu waxa weeyaan biil gaar kaagama baahna iyo dhaqaale gaar kaagama baahna taasi xataa awood waxaad doonaysaa inaad intaad dhisto haddaanad xataa iibin ay ku noqoto waxa weeyaan haddii guurtaa dee lacag badan ay kuu jirto hadhowtole waa in iyadu sideedaas inaad intaad ilaaliso muddo markay gaadho deetana waxa weeyaan aad ka faa'iidayso oo aad ku iibiso 2 jibaar amba 3 jibaar lacagtii aad ku iibisay si kale waxaad u awooddaa inaad karaysaba jagada laftigeeda oo shay yacni laga dhistaa amba ganacsi laga dhistaa amba adiga laftigeeda waad ka samaysan kartaa ganacsiga haddii ay tahay meel very strategic amba waxa weeyaan ku habboon ganacsiga ku habboon marka waa labada qaab waa bad debt iyo good debt kan waxaa laga yaabaa yani 5 sano haddii loo qabtay lacagta inuu ku bixiyo 5 sano inuu gaarigii shil galo inuu gaarigii xumaado inuu gaarigii waxa weeyaan uu si kale waxa weeyaan ay ugu timaado waxa weeyaan caqabadu gebigiisa waxa weeyaan istaago taasi marka amba dhib buu geysanayaa amba isagaa waxa weeyaan dhibaataysmaya then qofkii waxa weeyaan laba lacago waa laga rabaa waa lacagtii gaariga iyo lacagtii waxa weeyaan gaarigan lagu hagaajinaya amba khasaaruhu geystay lagu fulinayay hawshiisii halka jagadu iyadu keliyata ay kaaga baahan tahay inaad sharci u samaysato simple lacagta sharciga ay kaaga baahan tahay waxa weeyaan inaad bixiso waa wax hal mar ka baxayanba waa kharashaad hal mar ka baxaya halka kan kale yahay kharashaad joogtaa waxa ugu yar waa shidaalkiisa laga yimaado yacni maintenance-kiisa iyo dhibtu geysan karayba marka labada dhinac markaynu ka eegno waxaan good debt iyo bad debt saasay ku kala duwan yihiin deynta wanaagsan ee uu qofku kaga faa'iideyn karayo amba ganacsiga ku bilaabo amba asset ku iibsaday uu kaga faa'iideyn karayo wax lacag uu sii samayn karayo isaga lacagtiina uu si fiican isaga bixin karayo isaguna uu lacag kale uu kasii heli karayo talabaadna waxa weeyaan bad debt waa taa halista gelin karta qofka dhaqaalihiisa sida inuu iibsado wax isaga jeebkiisa lacag kasii qaadaya amba wax kaloo anfacayno iska wax dhaldhalaala